walaalayaal iminka waxaan rabaa inaan idin tuso mid ka mid ah cuntooyinkii uu cuni jiray ama sharaab iyo cabitaanadii uu cabbi jiray rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. tani waa biyo marka nabigu wuxuu cuni jiray sallallahu alayhi wasallam biyahaas kowde oo lagu daray al-asal oo malaba marka waxa la isku dhahaa sharaabul asal baa la dhahaa sharaabul asal waa casiirkii malabka biyaha iyo malabkaas la isku daraya oo la isku qasaya dabadeedna waxay soo baxaysaa casiirkii malabka isku qasayna inagu insha Allah waayahay saadu jiddan iminka cabitaanka waxa la yiraahdaa cabitaankii ama sharaabul asal cabitaankii malabka waa biyo iyo malab la isku daray nabiguna wuu jeclaa sallallahu alayhi wasallam waana cabbi jiray walaalayaal waxaan kala rabaa inaan iminka idin tuso mid kamid ah cuntooyinkii uu cuni jiray rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa kamid ah cuntada uu cuni jiray khubsta waxa uu taqaanaan idinku khubsta dadka qaar markay si fiican u wada karto waxay yiraahdaan sabaayad ama kimis ama chapati magacyo badan bay leedahay laakiin waa khubsun taasi waa khubs waxa kale oo nabigu khubsta uu ku darsan jiray sallallahu alayhi wasallam khalka furniture ama khalka tan waa maxay waa saliidi marka salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi waxayna tusinaysaa in xaaladiisu aanu isagoo nabigi ilaahay ah inuu hadana khal iyo saliid iyo khubus haduu isku helo uu ilaahay ugu shukri naqi jiray waxaan tusayaa balqaabka yaro khalaman ku darayna halkan waayahay yaro saliida waayahay bal hadaba waxaynu tijaabinaynaa cuntadii rasuulka salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi atan khubstina bismillah ما شاء الله تبارك الله مرة walaalayaal iminkan waxaan rabaa inaan idin tuso mid kamid ah cuntooyinkii uu nabigu cuni jiray salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi waxa kamid ah cuntooyinkaas waxa la yiraahdo tamar oo timirta ah bismillah ma sha Allah tabaaraka rahmaan waxa kale nabigu uu cuni jiray sallallahu alayhi wasallam rudabtu waa nooc kamid ah iyaduna timirta waa nooc kamid ah iyaduna timirta ma sha Allah tabaaraka Allah midda kale ma ogsoontiidin walaalayaal in nabigu uu jeclaa waxa la yiraahdo xalawiyaad ama xalwada ama waxyaalaha macmacaan dad badan waxa u maleynayaan xalwadu inay tahay wax caruurta yar yar ay cunaan laakiin se mar hadii wuxuu xalaal yahay oo cunto xalaal oo tayiba ay tahay dadka waaweyn way cuni karaan mar hadaani wax xanuuna ama wax dhibaato ay ku keeni karin nabigana salawaatullaahi wa salaamu alayhi wuu cuni jiray xalawiyaadka wuu jeclaa wuu cuni jiray sabiibta nabigeenu wuu cuni jiray wuu jeclaa sallallahu alayhi wasallam دينا يسر والدين فضل وحلال وحي طيب ودنك وحلاليس ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحن رباين أن إذن تصو قابكي والنبي عنتد وعني جري وهرين وحن كو بلابنا سيدي أيو أفريسان جري مركا أي عنتدو هورتا الله النبي عليه الصلاة والسلام مركا أفريسان أيو جلبهن أما الروغي اللوغة أيو دولك ديجي جري صلى الله عليه وسلم marka uu ruuga dhulka dhigo wuxuu fadhiisan jiray qaabka sidaas ee aynu u fadhiisanayno marka aynu ataxiyaadsanayno lugtiisa midigtu wax weeyaan way taagnaan jirtay tan bidixdana marka wax weey uu ku fadhiisan jiray qaabkaas ayuu u fadhiisan jiray wana qaab ay ku jirto ixtiraam waxa kale oo ku jira buucjiso oo calooshaadi ma wada banaanka ma wada taalo waxay ay ku koobaysaa cuntada aad cunayso qaababka uu nabigu diidi jiray in loo fariisto marka cuntada cunaysa waxa kamida
inaad dengiigato. dengiigashadu waa inuu qofku u fadhiisto qaab noocaas oo kale ah deetana cuntadana uu cuno. qaabka noocaasa nebigu wuu deedi jiray ama wuu reebi jiray sala allahu calayhi wasalam. marka uu fadhiisto uu maaragtay cuntadii la hor keeno gacantiisii oo uu soo faraxlay ayuu markaa ku bilaabi jiray. waxa uu horeeyay uu ku bilaabi jiray waa magaca ilaahay inuu xuso oo ah bismillaahi. bismillaahi marka uu dhaho cuntada inta soo xigta ayuu cuni jiray. sidoo kale bisinka uu qaban jiray gacantiisa midigtana wuu ku cuni jiray sala allahu calayhi wasalam. cuntooyinka nebigu uu cuni jiray ama uu ugu jeclaa waxaa ka mid a hilibka. hilibka gaar ahaan wuxuu jeclaa garabka ayuu aada u cuni jiray sala allahu calayhi wasalam. waxa kale uu nebigu uu cuni jiray ama uu jeclaa dhabarka, hilibka dhabarka marka wuxuuna dhihi jiray aada ayuu u macaan yahay sala allahu calayhi wasalam. hilibka wuu cunay, hilib digaag wuu cunay salawaatullaahi wasalaamu calayh. hilib kalluun wuu cunay sala allahu calayhi wasalam. waxaasoo dhan waxyaalaha ilaahay inoo xalaaleeyey hadday hilib geel tahay iyo adhi iyo lo intaba. waxaa kaloo nebigu uu cunay sala allahu calayhi wasalam khubusta ama kimista ama sabaayadda hadba sida loo yaqaano. waxaa kaloo nebigu uu cunay sala allahu calayhi wasalam cuntada loo yaqaano shaciirka ama xinda. shaciirku waa qamandida iyo sidoo kale sareenka ayuu cuni jiray salawaatullaahi wasalaamu calayh. waxaa kale uu cabi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam caanaha saafiga ah. caano maaragtay saafiga waa caanaha dhayda ah. waxaa kale uu cabi jiray caano markaa waxa weeyaan la qalajiyey. inagoo caanaha la qalajiyey waxa u naqaana caano boore. marka nebigu uu cabi jiray sala allahu calayhi wasalam. waxaa kale uu cabi jiray nebigu caanaha oo lagu daray wax kale ama biyo lagu daray iyo wixii la midka. rasuulku waa cuni jiray sala allahu calayhi wasalam. cabitaanka ama sharaab la cabana caanuhu ugu jeclaa. wuxuuna dhihi jiray waxa weeyaan ayadaa hunguri mareen laho hunguriga si fiican u maraysa haraadka iyo oonkana kaa bi'inaysa buu dhihi jiray salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. sidoo kale walaalayaal nebigu markuu cuntada cunayo muu ahayn mid cuntada ceebeeya ama wax ka sheega. sida inagu marka aynu cunto laynu hor keeno aynu wax uga sheegno matalan magacyo xunxun ayaan ugu yeedhnaa. matalan waxaa ka mida tusaale ahaan bariiska waxaan ugu yeedhnaa jay. markaa jaygii ma yaallaa buu ku leeyahay subxaan allah. baastadii xumayd ma taallaa maxaa laysoo hordhigay ayuu ku dhahayaa subxaan allah. hilibka waxbaad ka sheegaysaa waa mid baruur badan, waa mid maaragtay neef yar oo ama neef gabuubiba laga keenay. waa cuntada ceebaynta cuntada. bariiskiibaa bilaa milixa ama cuntadii ayaa milixdii iyo cusbadii ay ku yar tahay ama ay ku badan tahay. cabitaankii iyo sharaabkiibaa sonkortii ku yartahay ama ka badan tahay. marka waxaad ceebanaysaa cuntadii ama waxaad ceebanaysaa cabitaankii labadiiba. nebigu calayhi salaatu wasalaam midna muu aqoonin arrimahaas. haddii uu cuntada ishtiheeyo oo naftiisu ay doontana wuu cuni jiray salawaatullaahi wasalaamu calayh. haddii naftiisu ay karaahiyeysato oo aanu u baahnaynna wuu ka kici jiray khalaas. nebigu calayhi salaatu wasalaam muu ahayn mid ceebeeya ama wax ka sheega cuntada iyo cidda markaa waxa weeyaan cuntada u keentay. walaalayaal waxaan kaloo rabaa in idinla wadaago sheeko aada u qosol badan run ahaantii oo aad ka heli doontaan. sheekadaasi waxa weeye waad maqasheen ama ma maqasheen xadiiska nebiga ee ah kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yuxibu duhna. nebigu wuxuu jeclaa adduhna dufanka. waxaa jiray markaa laba nin oo masaari ah. waa qiso dhabo dhacday weeye. laba nin oo masaari ah. ninka masaariga ah wuxuu jeclaa nebiga calayhi salaatu wasalaam. dabadeedna wuxuu soo qaaday baruur. barida soomad arkin subxaan allah iyo baruur ayuu rooti ku guray sandwich camal. deetana wuxuu u dhiibay saaxiibkii oo wuxuu yihi kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yuxibu duhna. nebigu dufanka wuu jeclaaye cun buu yidhi. ninkiibaa saa u eegay dee baruurtii iyo baridii subxaan allah la ilaha illa allah wuu ku yalaaloqonayay. haddana uu iska cunay intuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. nebigiibuu ku saliye uu iska cunay. wuxuu yihi mar haddii nebigu ku amray ama nebigu jeclaa dee adiguna iska cun. maalintii dambe ayaa waxa u yimaadeen shiikha la yidhahdo maxamed xasaan oo ka mid a culimmada masaarida
dabeetana waxay weydiiyeen nebigu miyuu yidhi kaana rasuulullahi calayhi salaatu wasalaam yuxibu duhna nebigu duufanka muu jeclaa markaan ninkii wadaadka ahaaba wuxuu ihi haa waa saxiix waa xadiis jira weeyaan kii dee ninka ka dhargiyey baruurta ayaa wuxuu ku leeyay maxaan ku lahaa waa xadiis jira weeye wadaadkii baa wuxuu ihi may duufanku kaad mooday maahee waa duufankan jidhka la mariyo iyo madaxa la mariyo ama waa creamka iyo saliidaha iyo waxyaalaha dee laysku udgoonaysiiyo weeye ninkiiba mar qura intuu kacay buhi yaa kalb taqtulnii biismi nebi eyow ma waxaad rabtaa inaad magaca nebiga igu disho subxaana allah la ilaaha illa allah هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الشاي مع الحليب؟ نبي صلى الله عليه وسلم يعبي الشاه أما كوفي عن القدرين بسم الله أوله وآخره حقيقة وحوية النبي الشاه مو أقوني صلى الله عليه وسلم كوفي يكبتشينو من مو أقوني صلوات الله وسلامه عليه وحصودا قد أشي أيي مادين لكن ma xalaal baa mise waa xaaraan mar hadduu shaygu iska xalaal yahay oo mubaax u yahay dee qofka muslimka uu cabbi karaa waana cuni karaa soo maaha laakiinse mid baan kuu sheegayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam caanaha soo maad arkin iyagoo saafiyana wuu cabbay iyagoo wax lagu darayna wuu cabbay ama biyaha lagu daro ama wax kale ha lagu daro wuu cabbay inagu waxaynu ku darsanaa sharaabyo kala duwan baan dee caanaha ku darsanaa iyo cabitaaniyo casiiro kala duwan soo maaha qaar baa waxa weeye caanaha ayay muuska ku dar